Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa taariikh nololeedkii libaaxii saxaraha ama sheekhay mujaahidiinta. Wuxuu ahaa caalim diineed, dagaalyahan iyo hogaamiye hal adag oo iska dhicin jiray gumaystihii Talyaaniga ee dalkiisa ku soo duulay. Wuxuuna la dagaalamayay in ka badan 20 sano, asagoo dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ku qaadi jiray gumaystihii Talyaaniga, kuna qasbi jiray inay isaga baxaan dalkiisa Liibiya. Waxaa taariikhda u galay magaca libaaxii saxaraha, sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa sheekhay mujaahidiinta. Magaciisa wuxuu ahaa Cumar al-Mukhtaar ibnu Maxamed. Wuxuu Agosto 20-keedii 1858 ku dhashay deegaanka Badnaan ee dalka Liibiya. Hooyadiina waxaa lagu magacaabi jiray Caaisha bintu Muxaarib. Waalidiintiisa waxay ahaayeen dad wanaagsan oo Alle ka cabsi badan, waxayna wiilkooda ku soo barbaariyeen diinta Islaamka. Cumar agoonnimo ayuu ku soo koray, asagoo yar ayaa aabbihii xajka ku geeriyooday, waxaana soo gacan qabtay nin ay aabbihii saaxiibo ahaayeen, wuxuuna baray Qur'aanka. Sidoo kalena wuxuu geeyey dugsi Islaami ah. Halkaas ayuuna muddo 8 sano ah arday ka ahaa, wuxuuna ka soo bartay sharciga Islaamka iyo wax walba oo diinta Islaamka ku saabsan. Sheekh Cumar al-Mukhtaar sanado badan ayuu ahaa macallin Qur'aanka dhiga ilaa laga gaaro 1911, markaas oo ahayd markii ciidamadii Talyaanigu ay ku soo duuleen dalka Liibiya. Markan da'diisu waa 53 sano jir. Wakhtigii uu dhalinyarada ahaana wuu soo dhaafay, laakiin wuxuu go'aansaday inuu dadkiisa ka difaaco gumaystihii Talyaaniga oo xasuuq weyn u geysan jireen maatada iyo haweenka Liibiya, sidoo kalena uu ka joojiyo isku fidinta dhulka. Cumar waxa uu aad u garanayay juqraafiga dalkiisa, waxa uuna ciidan dhigay goobaha istiraatiijiga ah. Ciidan yar iyo cudud liidata ayuu kula dagaalamay gumaystaha oo ku hubaysnaa gantaalo casri ah. Dhulka saxaraha iyo buuraha oo marin u ah gumaystaha ayuu si xirfadaysan weerar ugu qaadi jiray. Weliba dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ayuu ku qaadi jiray ciidankii Talyaaniga, waxayna la yaab iyo amakaag ku noqotay ciidamadii Talyaaniga, maadaama ayagoo haysteen hub casri ah, sidoo kalena ay ahaayeen kuwo horumarsan. Uu hurdada u diiday Cumar al-Mukhtaar oo oday weyn ahaa, sidoo kalena uusan haysan hub dhammaystiran. Waxayse ugu dambeyn ugu yeereen wadahadal, una soo bandhigeen in ay siinayaan guri qurux badan iyo hanti ku filan, taasi beddelkeedana ay isaga iyo jabhadiisa isi soo dhiibaan. Laakiin Cumar wuu ku gacan seeray, wuxuuna ugu jawaabay in uusan dalkiisa marnaba laaluush yar ku beddelan doonin, dagaalna uusan ka joojin doonin ilaa ay dalkiisa kaga baxaan. Waxa uuna Cumar sii laba jibaaray dagaalkii, halkaas oo ay gumaystihii Talyaaniga kala kulmeen halaag badan. Cumar akhlaaqdiisa iyo naxariistiisa waxay aad u soo jiidatay xitaa cadowyaashiisa. Marka uu ciidan ka qabsado oo maxaabiis ka dhigo, si fiican ayuu ula dhaqmi jiray oo buu u naxariisan jiray. Laakiin markii ciidankiisa ay gumaystayaashu qabsadaan, waa ay dili jireen. Marka la weydiiyo sababta uusan u dilin maxaabiista uu qabsaday, wuxuu dhihi jiray gumaystayaashu macallimiinteena ma ahan, oo waxay ayaga sameeyaan ma samayno. Kadib 20 sano oo dagaal ah, guuldarooyin iyo dib-u-dhac ku keenay duulaankii Talyaaniga, Cumar waxaa la qabtay isagoo 73 sano jir ah. Kadib markii lagu dhaawacay dagaal culus
oo dhex maray asaga iyo gumaystihii Talyaaniga. Ciidankii Talyaaniga waxay Cumar u soo bandhigeen laaluush si uu ciidamadiisa ugu amro inay isa soo dhiibaan, laakiin had iyo jeer wuu ka diidi jiray, isagoo ku dhihi jiray oraahdiisii caanka ahayd, marnaba isma dhiibayno, waan guulaysanaa ama waan shahiidnaa. 3 maalin oo xarig ah kadib, Seteembar 16-keedii 1931 waxa ay soo taageen tiir ku yaala meel fagaaro ah oo dad badani buuxaan, halkaas oo ay ku daldaleen isaga oo 73 sano jir ah. Erayadii ugu dambeeyay ee Cumar al-Mukhtaar uu yiraahdo waxay ahaayeen: anagu isma dhiibno, waan guulaysanaa ama waan dhimanaa. Dilkaygu ma ahan dhammaanshaha jihaadka, waxaa idinla dagaali doono jiilka iga dambeeya iyo kan ku xiga. Cumrigaygu wuu ka dheeraan doonaa cimriga kuwa idaldalaya. Kadib ayuu dhahay: innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Ilaahay ayaana leh, asagaana u laabanaynaa. Kadibna wuu ashahaatay, sidaas ayuuna ku geeriyooday libaaxii saxaraha. 1981 ayaa la sameeyey filim looga hadlayo noloshii Cumar al-Mukhtaar, kaasoo lagu magacaabo Lion of the Desert, libaaxii saxaraha. Si fiican ayaana loogu soo bandhigay taariikhdii Sheekh Cumar al-Mukhtaar. Maanta taariikhdiisa way nooshahay, laakiin kuwii daldalay taariikhdooda lama haayo, sidaas ayuuna kaga cimri dheeraaday kuwii dilay. Daawade, muuqaalkan haddaad ka heshay like saar, subscribe-na ha ka ilaabin. Wassalaamu calaykum.